adawadayaal ku soo dhawaada dhibana xanuunsan isla mar ahaantaasina ku nool gudaha magaalada Woodward. Haddaba dhibanahan ayaa lagu magacaabaa Maama Foos Jaamac Cali. Waa maama xanuunsan isla mar ahaantaasina uu aafeeyay xanuun markaasi asiibay xubnaheeda muhiimka sida gacmaha, lugaha, indhaha iyo afkaba. maamadani xanuunku waxa uu hayay muddo dheer, waxaana sabab u noqday in markaasi uu fadhiisiyo. hase ahaatee maamadani waxa ay dhashay ciyaal agoona oo tiradoodu ay tahay 10 qof. isla mar ahaantaasina ay ahayd maamadani mid yadu u jilaabi jirtay, isla mar ahaantaasina ahayd yadu mid markaasi u xoogsan jirtay. haddaba wakiil wareedka TV-ga Som News oo looga soo deeriyay maamadani oo booqday ayaa waxaan la kulanay qoyska Maama Foos oo markaasi iyagu indhahaygu ay qabanayeen duruuf adag oo markaasi soo wajahday. maamadani ayaa ummadda islaamka looga codsanayaa inay maamadani soo caawiyaan, iyadoona qofkii qof muslima caawiya uusan Allah subxaanahu wa ta'ala uusan dayacaynin. sadaqada oo lala baxo waa shay qofka muslimka uu Alla u baneeyay isla mar ahaantaasina lagu eegayo. haddaba daawada kasta waxaanu ka codsanaynaa inuu caawiyo si markaasi maamadan dhakhtar loo geeyo. waxaa indhahaygu qabanayeen ubadka ay dhashay Maama Foos oo markaasi la ilmeynaya duruufta adag ee soo wajahday iyo dhibaatada haysata hooyadood oo markaasi cid aysan u maqnayn. haddaba daawadayaal qof kasta oo muslima waxaa laga codsanaya inuu walaashooda si dhibanaha uu soo caawiyo si markaasi ay u helaan nolol iyo caafimaad. qoyskan danyarta ee agoonta ayaa waxa ay yihiin kuwo markaasi ay dhibaatadoodu ay saameysay gebi ahaanba qof kasta oo markaasi u tagaa. alxamdulillahi rabbil aalamiin, salaatu wasalaamu calaa ashrafil anbiyaa wal mursaliin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan dadka muslimiinta hadday yihiin walaalaha islaamka oo dibadaha iyo qurbaha jira iyo hadday tahay kuwa gudaha Soomaaliya joogaba. salaanta islaamkaan ku salaamaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaanta islaamka ka bacdi halkan waxaanu ka soo gudbinaynaa gabadh dhibana ah oo xanuunsanaysa oo in badan aad iyo aad u xanuunsatay, muddo badan xanuunsanaysay sanawaadkaas badan ma aynan haysan awood ay wax ku qabsato, hadday lugihii tahay iyo hadday gacmihii tahay iyo hadday liqidii carabkii tahay. dhammaan miyirkeeda unbaa jooga, laakiin waxa weeye wax awooda male. saxarada waa laga qaadaa, cuntadana afka loogu guraa. gabadha ayadaa waxa weeye dhibane Foos Jaamac Cali. gabadhaasi waxay haystaa ubad carruur agoona oo aan aabahood dhintay. adduunna ma ayna lahaa, wax adduuna oo ay hayaanna ma jirto. iyada iyo carruurtuba way isku dhiban yihiin, iyana way xanuunsanaysaa. waxay u baahan tahay dhakhtar, meel dhakhtar leh in loo qaado. wax haba yaraatee yani sida awoodeedaana ma ay hayso. waana qoftaa dee dhiban. marka waxaan laga fursan waayay ama aan u baahnay dadka muslimiinta inaan soo gaarsiino ee khayrka jecel, ee xasanaadka la baxa, ee sadaqada la baxa, ilaahay dartood inay gabadha u soo caawiyaan. dhammaan mid dibad jira iyo mid guda jiraba gabadha wixii arka oo fariintaasi ay soo gaadho waxaanu ka codsanaynaa gabadhaas inay soo caawiyaan si meel dhakhtar leh loogu diro. haddii dalka Soomaaliya ama dee Muqdisho noqoto meel kale ahaatee loo qaadi karo Itoobiya, iyo haddii meel ka fog loo qaadi karaba gabadhii waxay u baahan tahay dhakhtar oo qofka caafimaadka u baahan. walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa soo caawisaan. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wallahu fi cawni alcabdi ma kana alcabdu fi cawni akhiihi. ilaahay addoonkiisa wuu kaalmaynayaa inta addoonku walaalkiisa kale u kaalmaynaya. sabab ma aragtay rasuulku wuxuu kaloo yidhi raxmu man fil ardi yarxamukum man fis samaa. isu naxariista oo u naxariista ka dhulka jooga allaha samada jira haydin naxariista, samada haydin ka soo naxariistay. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka inuu idinku daro. gabadhaas way dhiban tahay, awood badan waa loo waayay. tuulada magaalada yar bay joogtaa. wixii la siiya ayaama waa un masaariif
kuwa fara badan bay haysataa caruur fara badan bay haysataa adduun ma hayso odageedu waa dhintay iyada xanuunkaas oo muddo dhowr sano abaahayay ma haba yaraatee wax ay qabsan kartaa ma jirto adduun ay laas canood ku gaadho intaa jira ma jirto markaa waxay u baahatay dhakhtar sidaa darteed in aad soo caawisaan oo aad haddinkii usoo gurmataan sida ugu dhaqsaha badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala haydiin naxariisto ilaahay waxaan idinka rajaynaynaa miisaanka xasanaadkan idinku daro markaas si wanaagsan ayaan idinku soo gudbinaynaa bilaa tawfiiq annagoo ku hadlayna magaca ururka samafalka ee Soydo waxaanu dadka islaamka ah ay u taagan caawinta dadka tabaalaysan ama dhiban iyo arrimaha samafalka waxaan ugu baaqaynaa inay dadka muslimiinta ay soo caawiyaan walaashood foos ay horeyna u soo caawiyeen haddana caawimaad u baahan oo xanuunsanaysa caawimaadka ugu badan ay u baahan tahayna waxa weeyaan arrinta caafimaadka in laga caawiyo Soomaaliyeed ee islaamka meel joogtaba salaanka baadi waxaanu sheegaynaa maamadan aanu dul joogno inay u baahan tahay waxaanu leenahay maamadii way ka soo reen weyday iyada iyo caruurtii way isku dhiban yihiin maadaama hayaan hanti haysan ay dhakhtar ku tagto maamadii waxaanu leenahay iyadii caruurtii way isku dhiban yihiin muslimiintii walaalaha ahaa iyada walaalaheeda ahaa muslimiinta waxaanu ugu baaqaynaa sidii maamada inaad u soo caawisaan ilaahay waa subxaanahu wa tacaala deysuna xabuu yiri sidii sheekhu hadeer sheegayay maamadaas waa dhiban tahay dhakhtarkii hadeerna sidii hore way ka soo dartay oo sharciyadeena suubareed ayaa ila faraysa in markaasi qof kastoo dhibanaha la caawiyo waana tari maanta afoos jaamac inay tahay dhibana xanuunsanayo isla markaasina aan cid u maqan aysan jirin rasuulkeena calayhi salaam ayaa sheegay in qof kasta lagu eegayo buu yiri dadka kale isla markaasina la eegayo balse isugu naxariistaan haddaba daawado kasta waxaa ka codsanaynaa inuu markaasi caawiyo walaashood si markaasi ay qoyska yar ee agoonta maamadii u shaqayn jirtana ay xanuunsatay si markaasi ay u helaan nolol maalmeed iyo weliba sidii ay loogu tacaali lahaa dhakhtar caafimaad oo loo geyn lahaa hooyadood maadaama uu xanuunku ka asiibay lugaha gacmaha indhaha iyo weliba afka barnaamijkan waxaa idiin daadihinaya anigoo Sakariya Maxamed Ciise Wadani wakiil wareedka TV-ga Som News isla markaasina booqday qoyska danyarta ee agoonta ee ku nool degmada Woodwood isla marhaantaasina ay soo wajahday duruuf adag oo markaasi sabab u noqotay in qayla dhaan laga soo sheego in markaasina ay xafiiska soo gaadho qaylo markaasi wajahaysa in ummadda islaamka loo soo bandhigo سبحانه وتعالى وحكوليه إنما ندعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا حوية برشاد الإسلام كوحن وصوبان دقينا وشيقنا هو يضن هو يطبن عيار وعقونا وشغي سنشكتي الله سبحانه وتعالى حوق جيدي كفريسيي عافماد أو جيد عافماد الرأي هيسو عافماد كذا أنا واحد من اللي جوجي اللولا أيهي إن أتكلم قاعدتان سيدي كرجال كذاس بانو يصوبان دقينا إن أتكلم قاعدتان محمد عيسى وداني TV-ga Som News Woodwood